madaxweyne farmaajo oo magacaabay guddiga qabanqaabada xafladda uu xilka kula wareegayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada oo maanta ka jiray xaaladda guud ee dalka qaar ka mid ah waalidiinta ee carruurtooda ku maqan yihiin dalka Eritrea oo Muqdisho ku dhigay bannaanbax ay ku dalbanayaan inay la kulmaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo laga sugay inuu wax ka qabto 5 qodob oo ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira dalka iyo maxkamadda militariga dalka Tunisia oo xabsi ku xukuntay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaas marka la habeen wanaagsan saaxiibeel waa salaaso arbaca ayaa soo gelisay waa 17 bisha May sanadka 2022 waxaa noo waramaya Axmed Maxamed Ibrahim Mas'uud Xuseen Cabdulle Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan madaxweyne farmaajo ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada xafladda xilka uu kula wareegayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan axmed gacal hayno faahfaahiye warkan madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya halkaas oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha xilka ka sii degayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana kulan booqashiye salaana waxa uu madaxtooyada qaranka kula qaatay madaxweynaha xilka ka sii degayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankaas ayaana labada madaxweyne waxay iskaga xog wareysteen xaaladda guud ee dalka iyo sidii si wadajir loo sii ambaqaadi lahaa geedi socodka dawlad-dhisidda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaana markale u hambaliyay madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud isaga oo alla uga baryay inuu u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee loo doortay waxaana shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay si buuxda ula shaqeeyaan dawladda cusub sidoo kale madaxweynaha xilka ka sii degayay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada xil wareejinta madaxweynaha guddigan ayaana gudoomiye looga dhigay agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cabdullaahi Ciise Farmaajo ayaana faray guddigan inay si degdeg ah u diyaariyaan munaasabadda xil wareejinta sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Xaashi maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bisha May sanadka 2022 waxaa madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulan salaan iyo booqasho ah ku wada qaatay madaxweynaha xafiiska jooga mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeynba waxay labada madaxweyne iska xog wareysteen xaaladda guud ee dalka iyagoo hoosta ka xariiqay sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa dadaalada dib u dhiska dalkeena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ugu hambaliyeeyay walaalkiis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka loo doortay ee madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isagoo alle uga bariyay in uu u fududeeyo mas'uuliyaddan culus waxa madaxweyne Farmaajo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed uu ka codsaday in ay si buuxda ula shaqeeyaan dawladda cusub dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo dadaaladii horumarineed ee uu geliyay dalka iyo dadka muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay guddi qabanqaabinaysa munaasabadda xil wareejinta guddigaas oo uu madax ka yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise waxaana uu madaxweynuhu faray inay si dhaqso ah munaasabadaas u diyaariyaan madaxtooyada qaranka ayaa dhanka kale u gudoontay madaxweynaha cusub ee la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhambaalo hambaliye ah oo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashadii 15 bishan ku qabsoontay caasimadda dalkeena ee Muqdisho dhambaalada dalalka aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada nahay waxay ku salaysnaayeen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay kaas oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi Farmaajo ayaa habeen ka hor looga adkaaday doorasho wareegga saddexaad la isla gaaro oo ka dhacday teendhada Afisyooni iyadoo uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay xukunka dib loogu soo doortay mahadsanid Cabdiraxmaan haddii aan ku sii socono warka madaxweynaha
xasan sheekh maxamuud ku aadan madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kulan wadajir ah la qaatay madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira. kulankan ayaa waxaa looga wada hadlayay xaaladda taagan ee dalka iyo sidii sare loogu qaadi lahaa wada shaqaynta dowladda cusub iyo maamulka dalka ka jira. kulankan ayaa daba socday kulmo uu saacadihii lasoo dhaafay madaxweynaha cusub la qaadanayay mas-uuliyiin kala duwan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda, wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiin iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada. sidoo kale waxa uu madaxweynaha cusub xalay kulan la qaatay taliyayaasha xoogga iyo booliiska kuwaas oo ka dhageystay warbixinta guud ee amniga. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalmaha soo socda la filayaa inuu si toos ah ula wareego xilka, isagoona booqasho ku tegay maanta xarunta madaxtooyada dalka oo muddo 5 sano ka hor ay ugu dambeysay. qaar ka mid ah waalidiinta ay carruurtooda ku maqan yihiin dalka Eritrea ayaa Muqdisho ka dhigay banaanbax ay ku dalbanayaan la kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud. cali cilmi salaad hayna faahfaahiye warkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Soomaaliya heshiisiya dariska heshiisa wahalaada iskaaga. Allahu akbar. waalidiinta dhalay dhalinyarada loo qaaday Eritrea ayaa isu soo bax maanta waxay ka dhigeen isgooska Tarbuun, waxayna soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud. iyaga oo la hadlay warbaahinta, waalidiinta ilmahooda ay maqan yihiin waxay sheegeen in xasan sheekh maxamuud ay ka dalbadeen inuu la kulmo si ay ugala hadlaan carruurtooda oo ku dhowaad 5 sano maqan. waxay intaasi ku dareen in guusha madaxweynaha cusub ay ku farxeen, waxayna rajeeyeen inuu baadigoobo madaxweynaha ubadkooda. waxaan rabnaa hawsha ugu horeysa oo ay qabanayso dawladdu inay ilmahayaga baadigoobkoodii horta ka bilowdo, asagoo mudana xasan sheekh maxamuud hadda ka hor ololihiisii dib u doorashada naga ballan qaaday inuu hawsha u horeyso oo uu qabanayaa ay noqdaan ilmahaas inuu raadiyo. ma hurdin doorashada saan u fiiriha ay waaga igu bariyay, waana ku taabacsannahay, dadka dhanna waa ku raacsan yihiin. waxaan ka rabnaa oon ka codsanaynaa ilmaha ballan qaada inaad keento, waxaan rabnaa inaad keento oo ilmihi u xeydato oo u tafaxirato, oo waxaan ku iri ilmaha waa rafaadeen, waa bararan yihiin, waa cagacad yihiin, waa baahan yihiin, tii bishaaq wada dhacday istaalada yaaliin. waxaan ka rajaynaynaa markaan inuu ilmaha yagii keeno insha Allah oo u hawlgalo hawlaha ugu horeeyo qabtana ilmihi noqdaan ayaan ka rajaynaynaa. insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu ilmaheena u hawlgalo hawsha ugu horeyso qabanaa inay ilmaheena noqdaan insha Allah. ololihii xasan sheekh ee mar kale suurta galay inuu dalkan madaxweyne ka noqdo, waxa uu ku sheegay in shaqadiisa ugu horeeyo uu ka dhigi doono baadigoobka 7,000 oo dhalinyaro ah, kuwaas oo dowladdii madaxweyne Farmaajo 5 sano ka hor ay u qaaday Eritrea. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa laga sugayaa inuu wax ka qabto 5 qodob oo ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira dalka. Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa warbixintan u diyaariyay. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu la wareego talada dalka, waxaana tagi doonaa villa Soomaaliya oo ay ugu dambeysay 5 sano ka hor. xasan sheekh maxamuud kuma cusba shaqada villa Soomaaliya, waxaana hor yaalla caqabado uu hore u soo arkay isla markaana uu waqtiga ka dhamaaday isagoo aan xal u helin. xogaalnimadiisa iyo way aragnimadii uu soo qaatay muddadii uu xafiiska joogay iyo intii uu ka maqnaa ayaa sanadkan la filayaa inay dhabaha u xaaraan qorshayaal xal loogu heli karo dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya. waxaa jira ilaa 5 qodob oo ah kuwa ugu waaweyn ee xalka uga baahan madaxweynaha aan weli xafiiska la wareegin ee xasan sheekh maxamuud oo la doortay 15 bishan. waxaana caqabadahaasi ka mid ah: 1. dhismaha ciidan qaran iyo ammaanka dalka. gobolka Jubbada Dhexe ee Soomaaliya iyo deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan waxaa maamula dagaalamayaasha Al-Shabaab muddo ku dhow 20 sano. Al-Shabaab markasta waxay geystaan dilal qorshaysan, qaraxyo iyo weerar toos ah, kuwaas oo ah dhibaatada ugu weyn oo ay wajahayaan shacabka Soomaaliyeed. waana inuu xasan sheekh maxamuud ka dhigtaa qorshihiisa koowaad amni darrada dalka ayay leeyihiin dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha cusub waxaa laga sugayaa inuu dhiso ciidan qaran oo Soomaaliya ka difaaca cadawga gudaha iyo midka dibadda. Soomaaliya waxaa ka howlgala kumanaan ciidan ajnabi ah, sidoo kale waxaa jira dawlado kale oo dhanka tababarada iyo qalabka ciidamada ka caawiya. waxaana madaxweynaha cusub looga fadhiyaa inuu dhiso ciidamo qaran oo la wareega ammaanka dalka. 2. musuqmaasuq xoog leh oo dalka ka jira. dhibaatada labaad ee bulshada Soomaalida haysata waa musuqmaasuq aan xad lahayn oo si weyn uga jira dalka. dhowr sano Soomaaliya waxay safka ugu horeeya uga jirtaa liiska wadamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka, iyadoo hanti dhowrka guud ee qaranka uu dhowr jeer sheegay in la lunsaday malaayiin lacag ah.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laga sugayaa inuu musuqmaasuqa xal u helo xilli dawladdiisii hore lagu eedeeyey inay qayb ka ahayd dawladihii dalka soo maray ee ugu musuqmaasuqa badnaa. 3 abaaraha iyo dib u heshiisiinta. Soomaaliya xilligan waxaa ka jira abaaro ba'an oo dadka iyo dunyada saameeyey iyadoo gobollada qaar laga soo wariyey inay dad u dhinteen gaajo iyo haraad halka kumanaan kalena ay ku xoolo beeleen. waxaa jira malaayiin carruur ah oo wajahaya nafaqa darro iyo deegaan la'aan kadib markii ay dhulkoodii abaaro uga carareen. abaaraha iyo khilaafyo kale oo dalka ka jira waxay keeneen inuu bato isku dhacyada beelaha iyo colaadda bulshada Soomaalida u dhaxaysa. waxayna Soomaaliya u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah waana qodob kale oo muhiim u ah in ay wax ka qabato dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud. 4 dhamaystirka dastuurka. Soomaaliya ma lahan dastuur rasmi ah waxaana lagu guuldareystay in la dhamaystiro qabyo qoraalka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka. dhamaystir la'aanta dastuurka waxa uu keenay inuu dalka ka bixi waayo khilaaf madaxweyne iyo mid ra'iisul wasaare. sidoo kale waxaa awoodaha qaar isku qabsada dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. Soomaaliya waxaa hadda lagu maamulaa dastuur ku meel gaar ah oo la ansixiyey sanadkii 2012. dawladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa hor yaalla inay dhamaystirto dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka oo muhiim u ah maamulka dawladnimada Soomaaliya. 5 doorasho qof iyo cod ah. Soomaaliya waxaa la filayay in wixii ka dambeeya sanadka 2020 laga gudbo doorashooyinkii hore isla markaana ay dalka ka dhacaan doorashooyin dimuqraadi ah oo ay dadweynuhu doortaan madaxda qaranka. laakiin amni darrada dalka ka jirta waxay sababtay in uu higsigaasi uu fashilmo. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo maalmo ka hor la doortay ayaa laga sugayaa sidii Soomaaliya uga qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah oo ay dadweynaha Soomaaliyeed u doortaan madaxdooda. doorashadan waxaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya soo doortay ergooyin ku sugan magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada kuwaasoo markii ugu dambeysana doortay madaxweynaha cusub ee dalka. dadka Soomaaliyeed waxay u baahi qabaan inay madaxdooda doortaan si u kala xushaan kuwa ay u arkaan inay dalka hogaamin karaan. qodobadan iyo kuwa kale ma u aragtaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud 4 sano ee soo socota oo xal u heli karo.